waxaan haybinayo wali loo halgamayaa inaan guushahano hibashaduna dayse waxaan haybinayo wali loo halgamayaa inaan guushahano hibashaduna dayse xuska 35 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo lagu qabtay xeryaha qaxootiga ee Dadaab waxa ka qayb galay aqoon-yahano odayaal culimaaddin dhalinyaro haween iyo dadweyne kale oo ka soo kala jeeda guud ahaan geyiga Soomaalida waxaana sanadkan xuska aasaaska ONLF diiradda lagu saaray taariikhda iyo halganka ay soo gashay jabhadda ONLF nuxurka heshiis nabadeed oo ay dhawaan la gashay dawladda Itoobiya iyo halka ay hadda marayaan dadaalada siyaasadeed iyo horumarineed ee dadka ku nool deegaanadaasi kooxda dhalinyarada kacaan ayaa madasha ku soo bandhigay suugaan noocyo badan leh oo ka turjumaysay dariiqii la soo maray iyo sida wali loogu baahan yahay si ambaqaadka rabitaanka dadka ku nool deegaanadaasi haddii ay dhabka tahay waan kula dhammayniye dhulkeeno karba iyo goday iyo gooyaha jigjigaban gacaloy ku gaynoon gariyay ku soo marin waxaan doonayayo dookhaygu jecel yahay dooliyo wadheeriyo ciideena dahabka ogaas waa ayaantii jawxaana istaagtay Itoobiya la diriire inagoo adoonsigu arladeeni haysto ummadeeni kala xiray ogaas waa ayaantii jawxaana istaagtay Itoobiya la diriire haddii aan unalifnahay ake waxaanu siinaa ummadeena weeye aylo binabidkay axdigaynu qaadne dadkaygo wagsoono haddii aan unalifnahay ake waxaanu siinaa ummadeena weeye aylo binabidkay axdigaynu qaadne dadkaygo wagsoono dadkii madasha ka hadlay ayaa aad ugu dheeraaday guulaha laga gaaray halgankii jabhadda ONLF iyo sida ay wali lagama maarmaan u tahay in la sii ambaqaado rabitaanka dadka ku nool deegaanada Ogaadeniya iyadoo oo ay yiraahdeen hadafka lagu gaarayo midnimo iscafin iyo wada tashi loo dhan yahay munaasabadani waxay u taagan tahay Soomaalinimo dadkani dhammaantood waxay u qasban yihiin Soomaalinimo islaam baynu nahay marka ugu horreysa islaam baynu nahay walaalaynu nahay haddana Soomaali baynu wadanahay dadku wuxuu ku kala duwan yahay male dhaqan luqad deegaan wax lagu kala duwan yahay ma jirto xawayaan gumaysigii un baa waxoogaa sida arigii iyo geelii noo kala ooday wax kale ku kala duwan yahay ma jirto cidda aan Soomaalinimada inuu taagana cid ma diidan Soomaali ma wadanin Soomaali ma wada taagana Soomaaliya xorowdo Soomaaliya hamidowdo raas casayr iyo raas kaamboni mooyaale iyo candhuufa miya tuulad maxay magaada tuuladii cadaysi candhuufa inta ku taalo waa anfar afkeeda iyo mooyaale u dhaxaysa hawaash herer kafa المشي اللي هذا راس كامبوني راس عسير انت ودحيس الصومالي بادقن الى الصومالي ميده الى الصومالي ميده الى قلبي وسودل الى قميص كبخي انت markaan ka tago munaasabada ku xigta باذن الله الكريم sida hadda yaana tantii ka horeysay iyo waxa ku ducaysanay ilaahu naga saar ilaahu qumeysi naga saar ilaahu kan ilaahu wadankeena xora hadda waxaan joognaa xorriyad haafayna haysanaa xorriyad dhiman baynu haysanaa laakiin hadda waxaynu gaadhnay lafteeda guul baan gaadhnay maanta tuulad kasta Ogaadeniya caalamku ka taagan yahay tuulad kasta iyo geed hoos waa laga xusayaa ingiriiska wuxuu oran jiray caalankaygu qoraxdu kama dhacdo qaaradaha dhan buu joogaa shanta qaaradood baa maanta laga xusayaa iska dhaaf geeska Afrika waad aqliseen maxamar iyo gaalkacyi iyo dhulkii maraqaadka aan laga maqli jirin yaa laga xusayaa soo ma aragtaan garawo oo safiirkii Mareykanku fadhiyo xafiiska hortiisa lagu xusayaa sanad guul soo guul ma
cid kasta oo Soomaaliyeed afis baynu u fidinay kama aaragoosanayno haddaynu inagu isku mashquulno waxaa beerdaroobaya oo fakanaya maxaa fakanaya fursadan aynu maanta haysanaa fakanaysa si aynu fursadda uga faa'iidaysano cid wax dishayba ma jirto cid dambiilihii ma jirto cid wax dhacday ma jirto waxaanaan haysanin Jabuuti oo dad soo dhiibtay waxaynaan haysanin Hargeysa waxaynaan haysanin Puntland waxaynaan haysanin Galmudug waxaynaan haysanin Xamar iyo Koonfur waxaynaan haysanin dadkii Kenya inagu leenayay baynaan haysanin waxaynaan haysanin dadkii jeel ogaadeen inagu ciqaabay baynaan haysanin inaga hayla adeegsanay hadalkii daahir gudunta ku goysay taabku kuna ku goynin taasaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo maraaxil badan ku soo marayay waxay oona lafku guulaysatay si nabad ah inay barnaamijkeeda siyaasiga uga fuliso wadankii waa koow inay midayso dadkeeda labo inay siyaasadeeda dibad iyo gudoba ka shaqayso saddex waxaan u gobol xaalaynaa in inaga aftilayni weydiyo waxa rabno taa weeyaan muhiimku axmed cabdullaahi jaamac axmed deere maakhir cable tv xeryaha dhadhaab